meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muuqato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti ku teehaymo. السلام عليكم طاوضيال كسو دواده جنالكيga aad iyo aad kusoo dhawaada maanta waxa jooga magaalada fresh park oo jooga ilaad iyo aad ayaan jooga qalaad iyo aad marxaba wadankan Itoobiya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ka soo duulaya ilaa ka dhigo muuqaalaad iyo aad shaqooyin subscribe leeyahay ku tigran aad iyo aad sidoo la daawo meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muuqato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti. waxaan safar gaaban ku tegey caasimadda dalweynaha Itoobiya ee Addis Ababa. Addis Ababa waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn islamarkaana ugu koritaanka badan leh geeskan Afrika, waana caasimadda wadanweynaha Itoobiya. waxay muddooyinkii u dambeysay u dhismaysay si xawliya, sidoo kale waxay u koraysay xawliya. Survey la sameeyey 2023 waxa uu sheegaya in caasimadda Addis Ababa ee dalweynaha Itoobiya ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof, islamarkaana infrastructure ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay si xawliya u korayso. meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato. daawadayaal halka ka arkaysaan asxaab badan oo reer Burcay reer Hargeysa ayaa halkan igu soo dhaweeyay saddexdan ninka aadan baa leeyahay ninkan Cabdicasiis wala ninkan Maxamed la yiraahdaa war maxaa leedin dadka idin daawanaya waxaan ku leenahay ku soo dhawaad sababa halkan waa friendship park weeyaan oo beerta dalxiiska Itoobiya weeyaan meelo badan oo aad ku dalxiisto ayaan ku soo istoonaa halkan qurux badan marka waxaan ku leenahay hore soo soo ku soo dhaweynaa aad baan ku soo dhaweynaa Saciid Maxamuud Xaaji Cali oo ku soo dhaweynaa caasimadda Itoobiya aad sababa soo dhaw welcome aan kulan maxamedka oo ku soo dhaweynaa saaxiib qaadi meesha Itoobiya la dhankaraysa waa soo dhawo kulan welcome aad iyo aad dadmaatid meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muuqato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti ku tee. Itoobiya waa mid ka mid ah wadamada bariga Afrika, sidoo kale waa mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalahoodu ugu koritaanka badan yahay Afrika. sanadkii la soo dhaafay ee 2023 census ay sameeyeen gross domestic product ama korodhkooda dhaqaale waxa uu kor u kacay 12%. markaad wadankan joogto waxaad ka dareemaysaa soo saarka wadanka sida beeraha, warshadaha, laydhka iyo waxyaabo fara badan oo ay aad iyo aad ugu horumarsan yihiin. halkan imika aan jooga waa museumkoodii, waxaad ka arkaysaa waxyaabo fara badan oo taariikhiya islamarkaana ay wadankan Itoobiya u soo maray oo halkan ay ummado kala duwan ay dalxiis ugu yimaadaan si ay u daawadaan islamarkaana waxuuna ugu ogaadaan bal taariikhda wadanweynaha Itoobiya. meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muuqato maarmi waydo
daawadayaal soo dhawaada maanta waxaan ku suganahay Friendship Park caasimada Addis Ababa gaar ahaan Friendship-kan ku suganahay meel aad iyo aad u qurux badan laakiin yaa la hadday qurux badan tahay marada Soomaaliland quruxdeeda waxba nagama gelinay laakiin bal insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo halkan ma yara eegina insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo meelo kale oo far badan in mari doona hadii Ilaahay ka dhigo meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muxato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muxato maarmi waydo boqolbaan ka garanaya dib inoo saarsan سيدين هيا ريك قاعد قلت لي meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muxato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muxato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti kuute عبد العزيز ودكنا داونا محلنا والله عادي أظن في صحابنا ايه وحويا هذا محمد وحوي سعود حويا تيم دم halkan laga magaceed هذا ان سي ولا ان سي NC محمد soo dhaw saaxib محمد asxaab cilis burcaan midna bayna socota maxamed ku soo dhaw channelkayga waa dhaw saaxib ka war magaalada Addis Ababa nolosheeda sabab jumla ha ما شاء الله magaalada Addis Ababa laba qurumood laba dad baa ugu badan baa leeyahay dadka Soomaalida صح dad caafimaad u yimaada iyo dad dhoof u yimaada adu saaxiibku maxaad joogtaa أنا صاحب وحنا ما تشوفه بس كذا كيسة فكايس ku كيسة joogtaa ninkaas laakiin إذا كذا إذا ما يضاف ما روح حريسيه سوما كذا إن شاء الله هذا ساعتها كذا هو مصور كنا ذلك كتير تردد ninkan asxaabta Toronto doonaya inuu ku soo biiro la soo dhaweeyo si kaliya laaba meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muxato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muxato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti kuute meelan joogaba aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muxato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muxato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti kuute magaaladan Addis Ababa ee aad arkaysaan waxay aad iyo aad ugu horumarsan tahay wadamada jaarka la amarka loo eego infrastructure-ka dhaqaale sida kaabayaasha wadooyinka dhismayaasha dhicda magaalada lighting-ka iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan gaadiidka dadka qaada ee dadweynaha ayaa ah mid aad iyo aad u jaban isla markaana magaalada dhinac ilaa dhinac u wareejinaya nolosha iyo maciishada magaalada Addis Ababa aad bay u jaban tahay meelan joogaba aday
ay muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muuqato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muuqato maarmi wayday musanawdo ku dulmeerte aday magan iyo marti kuutee daawadayaal muuqaalkii quruxda badnaa ee kasoo duubayay magaalada Addis Ababa caasimadda waddanweynaha Itoobiya intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya dhammaan daawadayaasha halkan igala socda maalin walba waxaan leeyahay fadlan muuqaalku markuu soo gaadho subscribe-ta like-ta iyo commentiga la dhaafin aad iyo aad baad mahadsantihiin meel kasta daafaad dunida ku joogtaana wada salaamaya la socda muuqaalada aan channelka soo gelin